kulankan oo lagu dhameystiriyay heshiis laba beelo walaalo ah ee horay dagaal ugu dhexmaray deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa loo maray dhaqanka Soomaaliyeed waxaan lagu kala qaatay sumal iyo sabeen oo lagu gowracay goobta heshiiska oo ah deegaanka Ceel Muluq ee ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay goobta kuwaas oo hogaaminaya neef geel oo rato ah iyagoo u dabaaldegaya heshiiska nabadeed ee la gaaray qaar kamid ah odayaasha labada beel ayaa ka hadlay heshiiska ay gaareen iyagoona u soo jeediyay dhammaan beelaha degan deegaanadaasi inay midoobaan ayna ka shaqeeyaan horumarka deegaanka walaalaha inaan ku shalan heshiinay wax ay ka sheegay waxaan ku heshiinay allana marago ka ahay adina waa idin sheegnay waxa waaye dib ugu naqahay si wadahayna ma taqaana waa xoogo haddii afkayga laga rabana waa sheega walaahana walba ahayn ilaahay noo dhaliyay ilaahay nagu soo bixiyay allaha nagu dilaan leenahay kuna dhex jirnay aan ma taqaana dadka inaan ku falcishano shala ku ballan waa qabnaa waa la qaadanay waa ku heshiinay allahana noo reeriyo inaan maaragtay sumalkii sumaynkii maaragtay wada biraysano oo aan isu duceyno oo aan ilaahay ka cabsanno oo maaragtay dadku islabadgeliyo oo maaragtay dadku walaaloobo oo dadku ahaloobo waxa waaye dadku islaamnimada deeqdo walaalnimada deeqdo ahalnimada deeqdo dad dirisnimada deeqdo waxa waaye intaas qofka uu fahmo oo islaamnimo fahmo oo dirisnimo fahmo oo ahalnimo iyo walaalnimo fahmo wax ka halaabaya ma jiraan imaam daahir imaam maxamuud imaam Umar ayaa ka warbixiyay dadaalka ay u galeen sidii loogu guuleysan lahaa in la heshiisiyo beelaha dirirtu ku dhexmartay deegaanadaasi colaad waxbay baabaysaa maan waxa batar mar kale iyo mar saddexaad aan Allah subhanahu wa ta'ala xasuusayna una mahad celina beelihiin naga aqbalay go'aanka iyo go'aan u dhignay heshiiska isla qaataan una mahad celina dadkii ka soo safray meel walba isaga yimid oo ka qayb qaataan uma mahad celiyayna dadka degan deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay dadaal ugu jireen muddooyinkii u dambeeyay horumarinta howlaha dib u heshiisiineed ee ka soconaya guud ahaan deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.